cabdulaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa soo galay magaaladii baqdaad. waa cahdigii haaruun rashiid weeyaan. magaaladii waxaa laga dareemay dajax, sawt baa laga dareemay iyo guux iyo isdhex socod. daadna markaasaa xaaskii haaruun rashiid zubayda la odhan jiray ayaa waxay ku tidhi, xaraskaygii ilaalinayay bay ku tidhi, magaalada maanta maxaa ku soo biiray ii sheega. markaasaa lagu yidhi imaam baa soo galaya, a'immada muslimiinta ka mid ah. daadna dadka muslimiinta o dhan ninkaabay maaragtaan u soo maaragtaan ay kulankiisa masaajid iyo khayrka u soo camirayaan. daadna markaasaa masaajidkii jaamica ayuu soo galay. 100,000 oo qof dad ka badan ayaa markiiba xalaqada fadhiisatay. dadkaasi adab bay lahaayeen, cilmi bay lahaayeen, alla ka cabsi bay lahaayeen, akhlaaq wanaagsan bay lahaayeen. culammada qadarkayga ayay garanayeen. dadka islaam muuminka beriga iimaanka lagu qiimaynayey. muslimiintu diinta isku jeclaayeen. caamada muslimiintu culammadooday ku xidhnayd. caamadu culammaday jeclayd. culammaduna caamaday la soconaysay, wax baraysay. masaajidkii buu soo galay. markiiba darsi buu bilaabay. daadna sheekhii u hindhisooday baa la yidhi, maxaad u malayn markuu hindhisoodu alxamdu lilah uu yidhi, 100,000 oo qof ayaa min samiimi quluubihim, ayagoo qalbiga ka jecel waxay yidhaahdeen hal mar keliya yarxamuka allah bay yidhaahdeen. sawdka ka soo baxay 100,000 oo qof ayaa qasrigii boqorka laga maqlay. zubayde way yaabto waxay ku tidhi, ciidankii ilaalinayay bay ku tidhi, waa maxay qayladaasi? waxaa la yidhi dhibaata ma dhicine, sheekhi baa hindhisooda, waa ducadii loo ducaynayaad maqashaa lagu yidhi. daadna markaasaa kiira qabatay, way maseertay. haaruun rashiid bay u gashay, kicisay ku tidhi, ummadda maadaa xakumo amiir u ah mise wadaadkana amiir u ah? markaasuu ciidankiisii buu ku yidhi, wadaadka magaalada soo galay waa kuma? markaasaa lagu yidhi waa cabdulaahi ibnu mubaarak baa soo galay. caalimkii reer khuraasaana ee zaahidka muxadidka ahaa baa soo galay. markaa buu zubayde ku yidhi, naa iska jiifso, iska fadhi buu ku yidhi aqalkaaga. annagu qoloftaan xakunnaa, culammaduna qulubtay xakumaane. annagu qoloftaan xakunnaa, culammaduna xaggay xakumaan? culammada quluubta yaa ku xidhan. maadaama culammadu ilaahay ay ku xidhan tahay, iyakana quluubta dadka ilaahay ku soo xidhaya. zamankaas dadka waxaa lagu qadarinayo, lagu qiimaynayey, iimaankaa lagu qiimaynayey, cilmigaa lagu qiimaynayey, akhlaaqda wanaagsan baa lagu qiimaynayey. nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa, waan iibinayaa. meeqaad ku gadaysaa baa lagu yidhi. wuxuu yidhi 120,000 oo dirham baan ku gadayaa. markaasaa lagu yidhi 20,000 waa macquul, laakiin 100,000 ee dul saarata maxay tahay lagu yidhi. wuxuu yidhi 20,000 waa aqalka qiimihiisii, waa runtiin, laakiin 100,000 waxa weeyaan waa darisnimada aad la darsaysaan. cabdulaahi ibnu mubaarak baa daris la ahay. markaa darisnimadiisa ayaan ku iibinayaa 100,000 buu yidhi. 100,000 wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'minu, wallaahi laa yu'min. qiila man yaa rasuula allah? qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah. nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer buu ilaahay ku dhaartay. wuxuu yidhi, wallaahi baa ku dhaartay iimaan male, wallaahi baa ku dhaartay iimaan male oo ilaahay ma rumayn, wallaahi baa ku dhaartay iimaan male. yaa rasuul allah, waa aya baa lagu yidhi, qofkaasi waa qofka jaarkiisu sharkiisa ay ka nabadgeli waayaan, qofkaasi ilaahay aakhire ma rumayn buu rasuulku yidhi. akhlaaqda wanaagsan sidaasaa loo kala iibsanayay. dadka akhlaaqda wanaagsanna darisnimadooda, dadka dhaqanka wanaagsanne ee ilaahay ku xidhan, sidaasay ummaddu ugu xidhnayd, sidaasay maaragtaan masaajidda ummaddu u soo camiraysay. yaa falidaalika walaalayaal, ilaahay naguma qiimaynayo qabiil, ilaahay bini aadamka kuma qiimaynayo. haddii qabiil lagu qiimaynayo cid, abaalahab nebi maxamed adeerkii buu ahaa, abu aalibna nebi maxamed adeerkii buu ahaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuniya weeyaan, alhaadi. hanuunkana ilaahay isagaa bixiya. ilaaha caza wajalla abulahab u qadaray inuu gaalnimo ku dhinto, bilaal alxabashana hidaaye allaha u qadaray, ilaahaasaa hanuuniya. marka mansab maaha, reerkaad ka dhalatay maaha waxa ilaahay kugu qiimaynayo. maadada dadku maanta ay isku qadarinayaan, hebelkii lacagta badnaa, hebelkii fooqa weyn halkaa ka dhistay, hebelkii warshadaha badan lahaa, hebelkii darajada weyn lahaa, hebelkii gawaadhida waaweyn lahaa, hebelkii dukaanada waaweyn lahaa, hebelkii bakhaarada waaweyn lahaa. maxaa ka dambaysa? qabrigiisii yaraana waa kan baa ka dambaysa. maxaa ka dambaysa? qabrigiisii yaraana waa kan qabrigiisii. kullu alladii fawqa turaabi turaab. waxaan arlada dul yaalla waa ciid, waa ciid, ciidna waa ku noqonayaan. dhulku waa ciid, aqaladu waa ciid,
gawaadhidu waa ciid adigu ciid baa tahay lacagtu waa ciid dharkaagu waa ciid cunadaadu waa ciid daaruhu waa ciid qusuurtu waa ciid aaway dadkii adduunyada soo camiray aaway ninbaa soo galay magaalada markaasuu nin sheekhu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd iyo dhexgee magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee magaaladana waan ku cusubahay igee ibraahim aladham baa kaxeeyey allah u naxariistee magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha isoo raac uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye wuxuu yidhi magaaladii camirnayd waa dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi wuxuu yidhi waa qabuurihii wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto cidda timaadda kama noqoto laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda halkana yimaadaanoo halkana camirmaysa dadka halka soo galana ma noqdaan buu yidhi taa way naaqusmaysaa tanna way biiraysaa buu ka yidhi yaa muqafal innagu waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaaya magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya bal iga jawaaba qabuuraha camirmaya waayo dadka magaaladan ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya laakiin dadka qabuuraha gala qabuuraha kama soo noqdaan iyagu marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa tan laga baxayo dadkeegu way sii yaraanayaan ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa waa qabuuraha weeyaan waa qabuuraha habeenada ka mida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'miniin caaisha radiyallahu canha aqalkeedu nebigu jiifay markaasuu nebigu ku yidhi caaisha caawa ma iska kaydayn ilaahay han caabude markaa bay ku tidhi ha iska cibaadayso deedna nebigu intuu sare kacay buu tahaaro qaatay uu qubaystay deedna u weysaystay salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey deedna caaisha radiyallahu canha waxay tidhi waan gam'ay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taataabtay agtaydii nebigu ma jiifo waan eegay ma taagna nebigu ma joogo meesha waxay gala dareen oo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kaluu caawa u guro reerihiisii kalu u tegey markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shaksi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay markaasaan fikiroon is idhi alla caaishaay waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga oo waxaad istiri nebigu reerihiisii kale reer ka miduu kollay u tegey bal doondoon nebi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay uu ooyaya muntasifa alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nebigu xasuusanaya daadna markaasay caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkeygii soo gashay gogashiiba hoosta ka gashay markaa nebigu waa u jeedaa calayhi salaatu wasalaam min mucjizaatihi waxaa ka mida baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi deedna markaasuu nebigu markiiba uu arkay uu iska soo noqday deedna ugu yimiday caaisha oo gogashii markaa faraashkii hoosta ka gashay buu u yimiday markaa buu nebigu kor fadhiista wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeedee markaa bay ku tiri waxba markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha ay daba yimiday ma markaasay tiri yaa rasuul allah adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kalaan soconnaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtaan xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa baa tiri raalli ah oo iska saaxay ku tiri waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo in la dhimanayna aad ku xisaabtamaysid xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaataa waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka u horraysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisaana waxa u sababa
waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyada waxay noqonaysaa kacakuf waad kacakufi noloshaada diintaaduna waxay noqon istiqaamo ma yeelanaysa sida diinta istiqaamo ku yeelan maysa